koox lagu sheegay inay yihiin burcabadeed Soomaali ah ayaa xalay saqdhexe markabka Kalluumaysi ka afduubtay xeebta deegaanka Kulula ee degmada Bandarbayla ee gobolka Karkaar ee Puntland. markabkan oo la sheegay inay wakiil ka yihiin Senator Daahir Ayaanle oo ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo ganacsade Maxamuud Shido ayaa kooxda afduubatay waxay dishay mid ka mid ah ilaaladii markabka waxayna dhaawaceen qof ajnabi ah oo u dhashay dalka China. ciidamada Puntland oo ku baxay afduubka kadib ayaa la sheegay inay isku hareereeyeen si ay markabka uga badbaadiyaan kooxda afduubatay. horey Senator Daahir Ayaanle ayaa dhexdhexaadin uga dhawaday madaxweyne Dani iyo Maxamuud Shido oo wajigii koowaad ee wada hadallada khadka taleefanka ku dhex maray iyadoo loo ballamay kulan kale oo ka dhaca magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxyaalaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa in ganacsiyadii iyo heshiisyadii ay horey u wada galeen 5 sano ee hore ay sidoodii ahaadaan iyo in xukuumadda madaxweyne Dani la shaqeeyaan. afduubka markabkan ayaa ku soo aaday xilli madaxweynaha Puntland Siciid Dani uu ku maqan yahay in muddo khariijka Carabaha gaar ahaan Imaaraadka oo kalluumaysiga iyo kheyraadka kale ee xeebaha Puntland laga qaado ay ganacsatadu u iibgeeyaan.